waxaa soo baxay dad Soomaali ah oo leh midabkeena ku hadla afkeena Soomaaliga haddana wata mask cadaan ah. taasoo macnaheedu ay tahay inay xambaarsan yihiin fikrado ay ka soo qaateen, ka soo koobiyeen, ka soo maanguriyeen dadka shisheeyaha ah ama kooxaha nayasa ee ugu tilmaamay inaan nahay garbage, wasaq iyo dukaafad. ayagoo doonaya in fikradaha dhintay ee baqtiyey ee ka iibiyaan dadkeena Soomaalida ah. dadka noocaas oo kale waxaa lagu fahmayaa in ay yasaan diinteena islaamka, inay ka tagaan dhaqankooda iyo taariikhdooda, inay isku dayaan inay qurxiyaan, u ololeeyaan dadka ay ka iibiyaan fikradaha noocaas oo kale ah ee ka soo qaateen ee shisheeyaha. laakiin saaxiib, arrintan maaha ugub ama wax cusub. haddii aad ku noqotaan taariikhda waxaa helaysaan dad badan oo la soo shaqeeya gumaystaha, dad badan oo ahaa shisheeye kalkaal. maanta waxaan jeclaystay inaan soo qaato qoraa agteeda aad iyo aad ugu weyn. qoraaga isaga wuxuu dhashay mid ka mid ah wadamadan Caribbean-ka. wuxuu la soo shaqeeyay gumaystihii Faransiiska. wuxuu ka mid noqday ciidamadooda. wuxuu u horay naftiisa, xoolihiisa, waqtigiisa. wuxuu u noqday kabaqaade. wuu u dagaalamay, wuu u halgamay, meel fiican ayuu ka tegay. ilaa ugu dambeynta uu ka soo toobad keenay, uu ka soo baxay. ninka isaga wuxuu noqday arday. wuxuu tagay jaamacadda Lyon. wuxuu bartay cilmu nafs. waa kasii gudbay, wuxuu sameeyay PhD. wuxuu noqday halgamaa. wuxuu noqday falisof. wuxuu bartay dadka la gumaysto maskaxdooda qaabka u shaqayso. wuxuu alifay buug aad iyo aad u qiimo badan. buugga isaga waxaa loo yaqaanaa Black Skin White Masks, oo macnaheeda ay tahay midabku waa madow laakiin waxa ay wataan mask cadaan ah. buugga isaga wuxuu aad iyo aad uga hadlayaa dadka la gumaysto maskaxdooda qaabka u shaqayso, raadkii uu maskaxdooda uga tagay gumaysigii lagu sameeyey iyo qaabka ay u fikraan. waxyaaluhu isticmaala waxaa ka mid a ninka isaga ah uu leeyahay qofka noocaas oo kale ah ee maaskiga cadaanka wata wuxuu ku hadlaa codka gumaystaha ilaa uu gaaro isaga codkiisa inuu hilmaamo. yacni wuxuu ka wadaa inuu hilmaamo diintiisa, inuu hilmaamo dhaqankiisa, inuu hilmaamo taariikhdiisa. meel kale ayaa wuxuu ku leeyahay dadka la gumaysto waxay ku hadlaan luqadda gumaystaha. dadka la gumaysto waxay ku hadlaan luqadda gumaystaha ayagoo u banaynaya ama u moodaya inay saas ku badbaadayaan, laakiin macnaha waxa uu ka wadaa dabcan ma ku badbaadayaan. qoraagan caanka ah loo yaqaan Frantz Fanon ayaa dadka noocaas oo kale waxa uu siiyey status ama xaalad special ah oo gooni ah. xaaladda magacay uu bixiyey wuxuu u bixiyey double bind. haddaan Soomaali ahaan ku macneeyo waa xabsi nafsi ah. waa hadal aad iyo aad u weyn, si fiican u dhegeyso. macnaheedu waxay tahay dadka noocaas oo kale ah macnaha ma awoodaan inay ku faanaan dhaqankooda, taariikhdooda, diintooda, laanna waxaa loogu tilmaamay inuu yahay garbage, qashin, wasaq, dukaafad. way yasayaan, way iskala weyn yihiin, way ka ordayaan. dhinaca kale ma awoodaan inay si saxa u qaataan dhaqanka shisheeye. ay isku dayayaan inay soo koobiyayaan, inay soo maanguriyaan, inay qurxiyaan, inay dadka ay ka iibiyaan. laanna systemka noocaas oo kale ama dhaqanka noocaas oo kale ah marnaba looma samaynin inay ka mid noqdaan. looma samayn inuu aqbalo ama uu soo dhoweeyo. looma samaynin inay u arkaan dad isku mid ah oo equal ah si walba oo ay isugu dayaan. taa macnaheedu waa maxay? dhaqankoodii waa ka tageen, kii kale ma aysan gaarin oo ma ka mid noqon. taasaa waxa uu u bixiyey Fanon waxa loo yaqaan double bind ama waxa uu bixiyey xabs nafsi. haddaan si kale u sheego aan soo gaabiyo, dhaqankoodii iyo diintoodii waa ka tahriibeen. meesha u socdeena ma aysan tegin oo albaabka ayaa laga xirtay. qoraaga ayaa wuxuu soo bandhigay dood aad iyo aad u xiiso badan. Soomaaliya fadlan doodan si fiican u dhageysta. min fadlakum dhagihiina amaahiya in yar oo kooban. waxa uu leeyahay qoraaga dadka la gumaysto, ha noqdo gumaysiga caadiga ahaa ee aan soo marnay ee xoogga iyo qasabka ahaa, ama ha noqdo gumaysiga xagga maskaxda ah, weli kaasaaba halis badan. waxa uu leeyahay dadka la gumaysto waxay ku silcaan oo ay ku rafaadaan oo isku dayaan in la aqbalo oo shaabadda lagu lufto, xitaa iyadoo xaaladaha qaarkood ay aqbalayaan dhaqamo iyaga hoos u dhigaya ama caadooyin iyaga liidaya. waa hadal aad weyn, aan idiin macnaya wuxuu ka wado. dadkan gumaysto ee isku dayaya inay dhaqamada shisheeye qaataan ee soogolootiga ah waxaa laga yaabaa inay maaska ay qaataan oo iska dhigaan dadkii cadaanka ah laftooda, call me American tusaale ahaan. waxaa laga yaabaa in diintooda ay yasaan oo ay dhahaan tusaale ahaan saliga naga tuura, caaga istijada naga bixiya. waxaa noqdo qof American ah oo waxaa ka weyn. waxaa laga yaabaa in qofka uu caayo ama aflagaadeeyo magaaladii uu ka yimid uu dhaho intaasoo kalaab ayaa ku taalay oo ka badan xitaa masaajidda. waa aflagaado aad u weyn isagoo isku dayaya in la aqbalo oo shaabadda lagu lufto. qoraaga ayaa dadka noocaas oo kale ah wuxuu ku tilmaamay tilmaan aad iyo aad cajiib u ah.
wuxuu dhahay qofka noocaas oo kale ah waa qof xididda siibaya afrikaanimadiisii oo isku dayaya in la aqbalo laakiin weligii aan noqonayn European waa tilmaan aad iyo aad cajiib u ah hadda waxaa soo baxay dad isku dayaya inay xididda siibaan Soomaalimadooda diintooda dhaqankooda oo ay iska dhiibaan ummado kala shisheeye oo weli neceb Soomaalida ku tilmaamay qashin dukaafad iyo wasakh si loo aqbalo oo shaabada iyada aan soo sheegnay lagu dhufto ha nacam 4.5 sax maaha waa xaraam waa khalad waa wasakh waa dukaafad in badan waa ka hadalnay sax maaha dadka in kala sooco sax maaha dadka in la yeeso sax maaha in Soomaali dhexdeeda ay isqaybiso laakiin taa macnaheedu ma aha in ay dadkan u isticmaalaan justification danka malahan uma socdaan 4.5 4.5 waxay ka dhiganayaan waa bundo waa bridge si ay u tagaan meesha u socdaan maxaa keenay hadalladan iyo waqtiga adag hadda aan ku jirno oo Soomaalida la beegsanayo maxaa keenay in laga hadlo xawlaadaha oo dad badan ay ku nool yihiin oo uu yahay lifeline-kooda maxaa keenay in laga hadlo masaajidda oo dadka ay ku tukadaan ku cibaadaystaan maskaxda iyo qalbiga ay ku degsadaan maxaa keenay in dadka Soomaalida dhammaantood laga dhigo dambiilayaal lagu shaabadeeyo in qalad iyo dambi ay sameeyeen sax maaha taas marka dadka Soomaalida ah fadlan wake up sheekada waa ka weyn tahay 4.5